السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدر رمضان مبارك sidoo kale jimco wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aan kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodka koonfur Hindi maxaa ka cusub ninkii John Abraham ciwaanada qaadanayo maadaama maanta oo jimcaha filimkiisa The Diplomat shaleemooyinka la saaray inkastoo xala aan soo qaadan review aan ka sameeyay sheeka ahaan la amaanay 3 xidig iyo bar ilaa 4 xidig la siinaa laakiin hindidan sheeka amaan ma yaqaan waxay rabaan filimka action ma yahay heesa ma leeyahay promotion ma loo sameeyay commercial ma yahay kadib la shaleemada soo aadan saadartay marka Oda John filimkiisa wuxuu ku bilowday 5 ilaa 7% tan waxay ka dhigan tahay marka hadduu dadaalo maanta 3 karoor ayuu gaaraa sababtoo ay fasaxa faastada holiya jiro rinjiyaal isku shubaya maanta shaqooyin lama aadayo galinka dambe waxa laga Diplomat inuu soo kaco marka 3 karoor u gaar laakiin sida hadda uu ku bilowday labadiisa karoor hadduu helo nasiib leeyahay John Abraham marka Diplomat culays badan saaran inkastoo sheekada la amaanayo halka rajo wanaagsan ee la qaba qiyaare waxay tahay inuu galinka dambe maanta sar u kac sameeyo sheekadiisa la amaana dadka isku sheegan kadibna sabdi xasar u kac uu sameeyo markaas waxa laga yaabaa toddobaad kale dheer inuu qaato ganacsi uu sameeyo laakiin John Abraham asaaba hore wuxuu u dhaafay filimkan aniga amaal gelinayo ma ahan uu ka dhawaajay film fair iyo faralaab heesa lagu gadaayo promotion loo sameeyo iska simple story u dhahay sheeko sahlan oo qadiyada India Pakistan arimaha safaaradda wali qaab diplomatic loo dhigay markaan ma ahan dagaal iyo waxaas ma diblomaasiyadii waxaas uu ka hadlaa marka wuxuu dadka reer magaalka rajeynaa filimka inay daawan doonaan John wuxuu rajeynaa marka laga bilaabo galinka dhammaanta filimkiisa inuu kaco laakiin update-ka barnaamijkeena ku bilaaban waxay tahay The Diplomat si low open aad u liito ku furmay 5% ilaa 7% wuxuu kaga furmay xitaa shaleemooyinka multiplexka ee waaweyn laakiin inta kale single screen markii la aado Java oo toddobaadkiisa afraad miya mustaqbalka si guud galay week 5 waa ayaa ka bilaabasho wanaagsan marka maanta waxa laga yaabaa oo jimco markii la dhameysto in Java uu ka ganacsi badiyo filimka lagu magacaabo The Diplomat oo Java 5 karoor meelahaas uu keeno The Diplomat hadduu dadaalo 3 karoor uu gaar hadii kale tan sida caadiga labadiis karoor uu qaato marka bal ra'yigeena ka dhiibta marka waxaan soo qaadanaa saaxiibayaal filimka lagu magacaabo Be Happy oo Abhishek Bachchan hogaamiyay ka barta Amazon Prime Video la soo gashay I think waxaan isla caawi xitaa wala daawan karaa Abhishek Bachchan iyo gabar yar lagu magacaabo Inayat Farma iyo wuxuu ku saabsan yahay filimka Noora Fatahi Abhishek Bachchan iyo gabadhiisa dabcan waa saaxiibo waxbay u barataa xaaskiisa shil bawri ku geeriyootay odagii Nasr oo Bahubali ku jiray filmo badan sameeya dabcan wuxuu Abhishek u yahay sodogiisu oo gabadha awow oo soo korishay Abhishek Bachchan marka gabadhiisa waxbarashadu ku ogyahay laakiin ayada dansiga jeceshahay tartan iskuulka dansiga ka qayb qaadanaysa waxay leedahay aaba dansiga ku guuleysto xarabanba ina imaaday garab istaagtay asigana uu ka diiday wuxuu leeyahay dansiga wax jira ma gabadhiisu niyada ka jibinaya markay dam Noora Fatahi macalimadda oo maana soo dhahayso bal gabadhaada niyo farxadeeda ka tali si ay horumar u sameyso Noora Fatahi Allah hadda gabadhiisu garab istaaga si kanaafka dan filimku waa very emotional Raymond D'Souza filimkan wuxuu yahay dabcan director-ka ninkii Race 3 iyo ABCD any band kan dance sameeyay labada qaybood ilaa street dance sameeya filimkan wuxuu ka yahay director qaabka dance uu sameeyay heer sare waa director-nimada waa simple 3 xidig iyo baral sina waliba waxa la filimka si kanaafka dan emotion ku li aaba iyo gabadhiisa inaba caadi ma ahan Abhishek Bachchan filimkan doorkiisa uu ka baxay halka saac hore shaqooyin isaga mashquulsan yahay laakiin si kanaafka dan asaga iyo gabadhiisa Inayat Farma isfahan ka dhaxay inaba caadi ma gabadhan Abhishek iskuma cusbo filimkii dabcan Ludo oo 2020 la daawaday dabcan gabadhiisa ay ku matalayso film kale very strong sidoo Abhishek Bachchan u jilay markaana wuxuu la imaaday jiliinan caadi ahayn Noora Fatahi xitaa very impressive Noora inta badan filimada waxa lagu yaqaan item song in uu soo gashay hal hees iyo wax yar oo kooban laakiin filimkan door fiican oo supporting adag ay qaad sida xiriirka connectionka gabadhii aabad ogaajinayso sida gabadha garab u siinayso Abhishek say u garab taagan tahay markii waxa la Be Happy faraxsanaa filimkaaneeto Abhishek Bachchan jilinkiisa waa ka baxsaday film laakiin ma aha shaleemada soo aadi kara Be Happy waxaan hindidanka adil faraxsanaa ku dhahamay ma wadaawanayaan sadartay marka hadda OTT-ga la soo gashay Amazon Prime Video laga daawado wala amaana weekendiga waxa laga viewership fiican u sameeyay faastada holi jirta in la daawado sadartay waxaan islaam marka annagana waana anfaca af Soomaaliya nagala soo dhigay maadaama uu yahay film available oo internetka ku jiro dhinaca kale ninkii ahaa asigana Kiran Abraham Isbagu soo laab sanadkii hore filimkii KI haduu Blackbuster u noqday markii ugu dambeeyay 30 October uu soo baxay faastadii Diwali kadib wiilkaaneed hadda wuxuu la imaaday filimka Dilruba sida fariin jecel uu magacaas u yahay filimka uma ahan sadartay waxa la siinaa laba xidig la siinaa meelaha qaar laba xidig iyo baral la siinaa waa wiil iska dhalinyaro wax barashada dabcan ku seegseeg ku deegaanka uu joogo dhibaato ku qabo hooyadiisa soo diray saxdeesa dabcan college ka dhameyso biis dil iyo waxaas problemka soo baxaysa gabadhii uu jeclayna uu ka soo tagaya marka wuxuu imaanaa meel kale imaanaa college gabar kale isku baranayaan gabadhii kale ta jeclaana siga uma soo jeedo markii dambe jaceelkeedu uu ku garab istaagaya tii kale oo ka tagtayna waxay aadeen dhankaasi Mareykanka aadaysa reera yeelanaysa Hindiya ku soo laabanaysa ayadoo gurkeedii ka burburay this guy waxa la marka iskuulka qalad uu ka galay waxaas markuu ka dhaco ayaa gabadhii waxay dhahaysaa apologize bixi xeerkana ma ugu jirtaa argani inuu baxsho kadib gabadhii isjeclaan xitaa way isku dhaceen college-ku ka tagaa waa film jaceyl laakiin ninkan stress kan ku badan yahay family problem haysto waxa la qaabka concept
concept guud ee loo dhigay aragtida filimka way fiican tahay laakiin connectionka iyo qaabka kale iyo waxaas filimka disha sheekada marka wax iska noqoto wax iska mala yacni oo aan very strong ahaan emotionka ku yaryahay that's why marka laba xidig iyo bar loo sinaa Kieran Abraham asiga kaliya jilinkiisa loo daawana marka jilin kaliya ma shaqeynayso doosan filimka uusan leen isku xir fiican iyo dhinacyo kala duwan angles oo soo galaynin marka baaba waa dil ruba sida muuqato Kieran Abraham nasiibkiisu qaba filimka Court oo aan xalay ka sheekeynayna waxa la ka sheeka fiican oo Bria Darshi u wado iyo wiilka harsha ma lagu magacaabaa filimkaas u badan tahay Week and Brilliant inuu qaadan doono kan oo daaqada ka bixi doono marka reerta lugu ayagana dil ruba waa iska diidan sheekadiisa liidata laakiin ganacsiga waa sugan doonaa dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa Bowen Kalyan filimkiisii Hara Vira Malu 28 bisha Maars la daawan lahaa iska muuqato inuu baaqanayo 2 toddobaad dhiman daawashada ilaa hadda lagama soo bandhigin Ghost promotion lama bilaabin dib loo dhigay marka hadda 9 bisha May ayuu filimkan aadasi shaac laga qaaday Bobby Dollar Ladarka ee Bowen Kalyan hogaamiyo ka Bowen siyaasaddu ka dhamaan la yahay laakiin filimkan hadda waa dhameystiran yahay space ku filan soo u helo waxa la sheegay marka 9 bisha May xilliga samarka ama xagaaga ayuu aadasida rasmiga ee filimka lagu magacaabo Hara Vira Malu oo filim weyn oo 4 sano shaqadiisa markay ugu yartay ee socoto dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa aqyaar ciwaanada qaybka Ravita Jawa Carra Masda Tharaa oo 9 bisha May calaamaysnaa odag waa la soo duldegay waxa soo duldegay Bowen Kalyan meel ma jiri kartaa shalay moolada asaas kale kuwa cadiradaha qaybaan shacabku wataa marka Bowen Kalyan meel imaado qof joogi kale male Ravita Jawa lama xushmay marka filimkiisa Masda Tharaa waa ka warqabna bishii Janaayo dabiiqada markii dhalashadiisa ahayd ayuu ka soo bandhigay teaser yaro aan inaba caadiyan action bucket police oo ku matalay laakiin hadda qoliyaha cadiradaha qaybaan kuwa tiyaatar iskale waxay Ravita Jawa gooyal lana meesha waxa ka taamar laangaab hata lugu ka taal sababta Bowen meel imaado qof dabcan ka biicabi kara malahan marka Masda Tharaa dib u dhici doona asaraasin doona taariikhka 9 bisha May oo Bowen Kalyan xoreysada la soo daabacay dhinaca kale maadaama maanta amarkan dhalashadiisa ay tahay sanad guris dhexdan u dabaaldegay odaga meedio iskala baashaale xalan ka sheekaysan inta badan waxyaabaha kale uu ka hadlo waxa kamid ah inuu sheegay saaxiibkiisa Salman Khan filimkiisa Sikandar inuu noqon doono Faris show qofka ugu horeeyay ee shaqamada ticket ghost aan way u dhahay Salman Khan filimadiisa aadan u jeclay saaxiibkayga waay dhinaca kale wuxuu dhahay filimkan Sikandar wuxuu qaas ugu yahay ee Armud Garasa directorka ee waa ninkii uu sameeyay filimkii Gajni oo inaba aanan caadiyan 2008 oo ku bilaabay amarkan xeerka ganacsiga in la gaaro lacag ilaa iyo dabcan 100 karoor asaab bilaabay marka hadda amarkan wuxuu leeyahay aqyaaray filimka Sikandar shaleemadan u aadi doona waa daawan doona ka dhawaaji markuu soo baxay dabiiqada bishan maalinka toddobaadka Ciidul Fidriga ee tahay sidoo kale tan xitaa waxa la weydiiyay Gajni 2 ma sameynaysa wuxuu dhahay aniga iyo Allu Arvind producerka filimka oo Allu Arjun Abis wuxuu waa ku balan inaan sameeyno shakadaas wuxuu dhahay marka Allu Arvind producerka iyo Armud Garas ay laga dhameystiray marka keenan wuxuu dhahay Gajni 2 oo dhameystiran anigana ra'yiga ku darsanaa kadib aan shaqo ahaan guda gali doona marka hadda wax dhow ma hayso muuqato script stage-ka la jooga oo Armud Garas uu qoraayo kadib markii amarkan sheekada loo keenay inputkiisa uu ku darsado waxa laga bedelo waxa lagu dar markii la dhaho kadib ay noqon doontaa laakiin mabda'iyan hadda amarkan wuxuu noo xaqiijiyay saaxiibayaal in Gajni 2 oo odag uu sameyn doono laakiin toddobaadkan wuxuu leeyahay ayraade bishan dhamaadkeeda wuxuu leeyahay Sikandar kori hoos shaleemada u aadi doona waana soo daawan doona iyo oday ka dhawaajiyay marka sheekooyinkaas ugu weyn soo qaadanaya hal iyo laba hadii ay wax kala jiraan aan isha ku sii xadna aan sii fiirino saaxiibayaal maadaama dabcan gelinka hore intaas ugu weyn waxaan soo qaadanayna dhinaca kale hadii aan sii fiiriyo waxaan u jeedaa wax hadda kale cusub aan arkaya malahan waxaan u jeedaa oo kaliya markii la fiirsho Farxaan Akhtar oo dhaawac dhanka jilibka ka soo kacay 4 bilood ninkan waxa la sheegay waxyaabo fitness iyo uu sameeyay gym iyo uu san aadin qalliin dhanka jilibka looga sameeyay bishii December ilaa hadda ugu dambeyntii uu soo kabtay Farxaan Akhtarna wax dhanka shaqada waxa uu diyaarsan film oo hogaamiye uu ka yahay dabiiqada sanadkan soo bixi doono oo lagu magacaabo 1920 waxaas la dhaho arimaha ka hadlay India iyo China dagaalkii dhaxmaray xilli hore lixdamaadkii xidigan tayada wanaagsan ee directorka ee producerka ee jilinka aan ugu gaarin hadda wuxuu leeyahay ugu dambeyntii recovery dhameystiran sameeyay sawirkaas ayuu baraha bulshada soo dhigay xilli uu dabcan orad uu bilaabay iyo sidoo kale dhanka gymkii isdiyaaran uu ku jiro actorkan wuxuu ka mid yahay actoryaasha well talented-ka hadda koox xitaa Filmfare best actor award qaata markii noogu dambeeyay shaleemada aan ku daawadan filimkii Tufaan oo 2021 uu sameeyay boxing ku ciyaaray Munal Thakur ay ku jirto inaba aan caadihin fariintiisa haddana waxa uu diyaarsan 120 bahadur filimka lagu magacaabo askari uu ku matalay dagaalyahan fariintiisa wadani ee tahay dagaal Indo-China ku saabsan waa arki doonaa marka wixii kale oo dabcan ka soo baxo laakiin hadda odaga wuxuu dhahay sadkan ku soo laabsado uu shaaca ka qaaday ugu dambeyntii yana ka tagay sidoo kale waxaan u jeedaa gabadha lagu magacaabo Niyantara ayaa sheegtay filimkeeda Testi ee malaay dabcan tamilka laga daawan doono barta Netflix waxay tiraahdaa qof kasta ayaa ku raaxaysan doona filimkan waxay tiraahdaa fariintiisa cricketka wuxuu ka hadlaa lacagaha
dabcan sharci darada ah iyo Salamad waxay sheegtay fariin dabcan inuu ka hadlo arrimaha qoyska ayada iyo Sidaarth waxay ku matalayaan laba lamaane ah ninkii odaga ah dabcan arma dhafana wareerin doono lacagaha bettingka iyo qamaarka cricketku ka hadla iyo familiyaraha ah iyo problemka la kulmi doonta Niyantara markii seegada dhibaato badan uu kala kulmo arma dhafan filimkan 4 bisha Abriil ayuu soo bixi doonaa si toos ah looga daawanaa barta Amazon ayna barta Netflix waa directed to OTT Niyantara filimkan waxa la sheegay kaash fiican ku qaadatay maadaama ay hogaamiyaasha qayb ka tahay Netflix lacag adaga laga sii waa gabar superstarada viewershipkeeda wadato inta badanna filimada ay sameeyso baraha bulshada haddii noqoto OTT-ga tiyaatarada si weyn looga daawada marka Amazon ayna Netflix filimkan test ay gateen Niyantara waxa qof kasta waxaan hubaa inuu ku raaxaysan doono aqyaare muuqaalkan intaas nooga egyahay marka Ramadaan mubaarak xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته